Asalaamu calaykum dhammaantiin waan idin salaamay. Kani waa Gori Gagbo, kaas oo bandhig cajiib ah sannadan la soo baxay. Gori Gagbo waxa uu waqti dhow oo laga joogo 2 sano heshiis la gaaray Liverpool. Macallin Jurgen Klopp oo World Cup-kii u daawasho tagay ayaa wuxuu arkay Gori Gagbo oo u ciyaaraya Netherlands, kaas oo ka tirsan PSV. Kaasuu dhahay, ninkan mustaqbal ayuu leeyahay, waa in kooxdayda la keenaa. Dalabkiisii iibiyaasha Liverpool waa ay ka rumeeyeen oo waa u keeneen. Hase ahaatee, bandhigga uu la yimid ba ahayd mid aad u liidatay, maadaama qaranka uu kaga ciyaarayay garab. Liverpool booska 9 oo striker ah ayuu kaga ciyaaray, taasoo bandhiggiisu uu ku lumay. Hase ahaatee, sannadan bandhig fiican waxa uu ku qaadanayaa Euro-ga, maadaama booskiisii saxda ah lagu celiyay ee garabka ahaa. Gagbo 3 gool iyo 1 caawin ayuu wataa 4 geem oo soo ciyaaray. Geemkii 5aadna caawa ayuu safan doonaa. Gori Gagbo waxa uu hogaaminayaa gool-dhalinta Euro-ga sannadan 2024. Gori Gagbo bandhiggiisan ma sii wadi doonaa haddii Liverpool uu ku soo laabto, mise sidiisii ayaa lagu celin doonaa oo striker-ka ayuu iska saarnaan doonaa, kaas oo ku weerari doona Liverpool, maadaama Arne Slot hadda uu kooxda la wareegay, kaas oo og booska uu ku fiican yahay Gagbo. Haddaba dhammaantiin aad u mahadsantihiin.